ciidamada daraawiishta Puntland ayaa maanta la wareegay deegaanka Shabaab oo ka tirsan degmada Qandare ee gobolka Bari ahayna fariisin muhiim ah kooxdani khawaarijta ee Daesh una ahayd xarunta maamulka ee kooxdani sanooyin badan ay ka soo abaabuli jireen qorshayaashooda lagu dhibaateynayo bulshada Puntland iyo Soomaaliyeed intaba ciidamada difaaca Puntland ee howlgalka ilaa ay ciribtirka kooxaha argagixisada ayaana si nabadgelyo ah kula wareegay tuulada Shabaab taasi oo muujinaysa jabka xooggan ee soo gaaray kooxdani argagixisada ee Daesh inay u adkeysan waayeen gulufka dagaal ee ciidamada Puntland oo argagixisada 10 lama ilaawana ugu dhigay xarumihii dhiigmiratada Daesh ee burleyda calmiskaada ee gobolka Bari deegaanadan cusub ay la wareegeen ciidamada daraawiishta Puntland waxay ugu tageen gacantana ku dhigeen hub kala duwan shidaal iyo dawooyin tirabeel ah oo ay kaga carareen kooxdani isbitaaladii ay adeegsan jireen ee ku yaalay deegaankaasi Shabaab iyadoona ciidamadu ay ku raad joogaan firxadka kooxdani oo jihooyin kala duwan leh sida ay sheegeen saraakiisha kala duwan ee hogaaminaysa howlgalkan iyagoona ugu baaqay bulshada Puntland inay muujiyaan feejignaan dheeri ah laamaha amaankana la soo wadaagaan cid kasta oo uga shakiyaan firxadka kooxdan argagixisada ee Daesh waxaanu joognaa magaalada Shabaab waxa la gaaray guul weyn ayadoo aan wax dhibuhu ka dhicin baa ciidamadu qabsadeen nimankii markay u adkeysan waayeen gacanta kululoo ciidamada difaaca Puntland waxay sameeyeen inay ka firxadaan meelihii lagu ogaa oo ay dhuntaan laakiin waxaanu ballan qaadaynaa inaanan meelna uga hari doonin haddii alla idmo waanu isnaqaanaa ururisa soo mataxa oo Puntland isku soo taaga oo maxaan ku yiraahdaa hoggaan la roora laakiin waxba nagama faa'iidaan kuwii hore sidaan u gali jirnay baanu kuwana u galeynaa insha Allah kuwani waa ajnabiba waxba kama reebi doono raadkoodaan soo tirtiri doonaa waa daba gali doonaa godkay galaan iyo meesha tagaan baa uga daba tagi doonaa laakiin anaga kuwii jannada noo soo doontay waxaan leeyahay anagu idinkan jireedii ka raadinayna walaalayaal soo istaaga oo u soo istaaga sidii aad markii hore u soo taagnaydeen waxaan u mahad celinayaa oo halkan aanu ku nimi dhiigooda kuwii hore u shishiiday oo u dhintay inaan maxaan ku halkan nimaadno imaatika aanu bartan nimi aan askar naga dhaawacmin aan askar naga dhiman waxa sababay ragii ku dhintay horay ee halka xabada u dhigtay ee aan gabashada ahayn sidoodii baa anaguna nahay iyaguna sidii kuwii ay u gubeenayeen maxaan ku ragaas ayaa u biqin loo gubo sida la ajliga doo cararayaan qabashada deegaanada Shabaab ka yaxaya deegaanada ku hareeraysan waxay qayb ka noqonaysaa guulaha istaba jooga ay gaarayaan ciidamada geesiyada ee daraawiishta Puntland maalmihii ugu dambeeyay danka kalena waxay ifinaysaa jabka burburka iyo kala firxadka xooggan ee soo gaaray kooxdani jihalaawayaasha ee Daesh una noqonaysa 10 lama ilaawaan ah oo aysan ka soo waaqsan doonin abid Yusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garowe